السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادن سلامي إلهي وحاين كرجيني عمري دير عبادة ميسترن يعرف ما دان ملكسو جوتان كسو دوادا جنان كس أنفع كعمو فرن كسو دوادا وجي فرن كسو دوادا ودن فرن كسو دوادا محد سندين كويني هوري وحرنا كويني عصبنا سو دوادا إن شاء الله وان سو دوانيا فضلا هدان نوغو عصب تهاديغو آدو مهدسن سبسكرايب كتابو قماليل كنا فرو وادو مهدسن تهاي دادكنا لسي وداك هدي ادكيشن لايك سار مهدسنيد مركيا انتس كسو قدبو ان شاء الله عاو حانيسو دياري امان جعليستي انان idinla wadaago qodobo dhowr ah aan isleeyahay maxay ahayto xaalada aan deganeyn dalkii aan ku dhalanay ama ka dhalanay marwalba ka taagan haddii laga hirgeliyo ama isku dayo in macquul noqon karto in maaragtay nabadgelyo waarto iyo xasilooni jirto laga helo. sababaha aan uga fakaray dhowrkan qodob waxay tahay kow horta ani sideedaba weligay nabad maana arag ayadoo dhib iyo dagaal iyo qax iyo dhib le arki jira weligay intaa Soomaaliya joogay anoo yaraan kasoo tagay kabacdina dib ma ugu laabanin qurbahan ayaan iska joogay hooyo ku noqday marka waxa aad iyo aad ugu wada qabaa maadaama aan nabad weligay arkin in ciyaalkayga nabad arki waayaan hadda ciyaalkayga dhalanay nabad arki waayaan haddii maaragtay anaka inteena maaragtay aan xooga saarin sidii nabadgelyo waarta loo heli lahaa inaan isku dayno intii tabarteena iyo awoodeyna ah inaan isku dayno inaan maaragtay waxaan ka qaban karna ka qabano. marka waxaan ku fakaray waxaana isdhahay waxaana isweydiiyey mar walba horta maxay qalalaasaha iyo dibka u dhacaa maxay Soomaali maaragtay qoloqole iyo qashin ugu wareegsataa anaku haysana 80% ama ka badan dad dhalinyaro ah dadka dunida waxay ku faanaan dhalinyarada haddana dhalinyaro aqoon leh wax bartay aan haysano maxaa keeni karo mar walba isweydiiyaa. marka waxaa isdhahay waxyaabo badan dhici karo waxyaabo badan la qaban karaa balse maadaama nabad jirin nabadda waa waxa ugu muhiimsan ee nolosha meesha hadduu ammaan iyo xasilooni jirin wax badan lama qaban karo horumar badan lama gaari karo waayo qof kasta wuxuu u baqayaa naftiisa sidii uu ammaan heli lahayd sidii u noolaan lahaa sidii ammaan iyo nabadgelyo ugu noolaan lahaa. marka waxaa isdhahay siyaabo qaar ama sidee lagu heli karaa maadaama dadka badanaa oo waxa la isku dagaalmo ku xasid waxa dadka dagaalka joogtada ah waa maxay aan isweydiiyey. kow horta waxaan ogaaday inuu yahay hal kursi meesha yaala in la isku dagaalayo waxaana kaloo ogaaday in Soomaalida inay qoloqole iyo qabyaalad jecel yihiin marka qof kastana wuxuu rabaa inuu asaga kursigaas ku fariisto kursigana dadkii oo dhan hal mar ma wada deeqayo waa in qof loogu fariisto. mid kale waxaa ogaaday kursiga qofkii ku fariisto maraba inuu ka dago qof walba wuxuu rabaa asaga inuu macaansado oo ku sii haysto marka taas waxay noqonaysaa cadaalad darro iyo nasiib darro waxay keeni kartaa inay dadka kala xanaaqaan waxay keeni kartaa xasilooni darro iyo dhibaato. horta marka inta usii gudagelin aniga khibradna muulihi aqoonna muulihi siyaasadda balse sidaad ogtihiin qof kasta ra'yi uu leeyahay ra'yigiisana xor ayuu u yahay laga yaabo inaad ra'yiga igu raacdid laga yaabo inaad iga soo horjeysatid balse labadaba micno ma lahan because qof kasta qofka kale ka duwan yahay wala ka ra'yi duwan yahay balse waxaa muhiim ah in la isku ixtiraamo qof kasta iyo ra'yi duwanaanshihiisa sababtoo ah qof kasta waa qofka Ilaahay ka dhigay isku mid ma wada nihin. marka waxa aan rabay ama jeclaystay inaan idila wadaago waxay tahay sidaan u helno nabadgelyo xasilooni iyo kala dambeyn si aan u helno si cadaalad ah si aan u helno dad qof kasto ama qolo kasto oo Soomaalida ka tirsan tahay ee Soomaaliya degan horta qof kasta kursiga xaq u leeyahay waayo waa wadaniga wadanka u dhashay ama citizenka wadanka u dhashay igaraan noqo citizen hadda Soomaali ku dhihin waxa aan kusoo dhaweeyo waxa wadani hadda qaldan yahay waa sixi kartaa hoos insha Allah comment-ka igu qor kaas ayaan ku gartay. marka waxaa is marka kow haddii la sameeyo system oo lagu sameyn karo si qof kasta oo ugu yeesho nasiib in uu wadanka xukumo ama wax kusoo kordhiyo
sida marka lagu heli karo ayaa isweydiiyey. sidaas waxaa kamid ah waxaas dhahay waxaa muhiim ah in la diiwaan geliyo dadka ama qolooyinka soomaalida ka tirsan tahay oo dhan, yar iyo weyn, badnaansho iyo yaraansho, wax qolo walbo. kadib in la sameeyo machine ama system oo qof kasta qolo kasta magaceeda lagu qoro, la geliyo meesha. markii la geliyo maxay ahayto mashiinkaas uu doorto magac hal qof, hal warqad oo magaca qolo ku qoran tahay uu qabto. magacaas marka uu wadanka qoladaas magacaas ku qoran ee wadanka xukunto 5 sano. qoladaas markay 5 sano xukunto waa laga saarayaa. inta kale oo meesha kusoo hartay ayaa 5 sano dambe haddana mid laga qaadanaya ilaa inta meesha ku jirta ay dhamaato. qolo si u baxayso kuma soo dhiganaya kuwaas ilaa kulli ay dhamaadaan. kulli markii la wada dhameysto qof kasta chance u helay, fursad u helay inuu kursigaas fariisto. kursiga la isku dagaalo, la isku dilaayo, oo nabad iyo naxariis la-aanta ay ka dhaceyso, oo hooyooyinka baahan oo agoomaha korsanaya xaraanta dabad looga gelinayo, dhiigoodii dhacaankooda ku baaba'ayo. marka meeshan loo wada ordooyo haddii system loo sameeyo oo la dhaho okay, qof kasta wuxuu nasiib u yeelan doonaa inuu kursigaas fariisto. ama qolo kasto, qof kasta ma la dhihi karo, laakiin qolo kasto, hadda qolo Soomaalida ku baaba'da soo maha. qolo kasta marka waxay jaanis u yeelanaysaa mar un adduunka intuu jiro in ay nasiib u yeeshaan kursigaas fadhiistaan. marka intay dad ku mashquuli lahaayeen qolo inay soo qaataan, inay qolo hebel iyo qolo hebel ay la diriraan ama dilaan, waxay ku mashquuli lahaayeen okay, magaca meesha ku jira haddii dhowr qof baxeen anaga ahayn qofkan, laga yaabo ina mar un fursad u heli doontid. marka waxay u badan tahay inay qolo kasta ku mashquusho qofkooda ugu aqoon yahansan, ama qofkooda ugu kartida badan leh, ama qofkooda ugu waxtarka badan leh, ama qofkooda isleeyihiin isbedel wanaagsan ayuu adinkana idin keenayaa, ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba u keenayaa inay diyaariyaan, ee u raad raacaan, ee ku mashquulayaan intay ku mashquuli lahayn dagaal iyo dil iyo baaba. marka taas markii kulligood marka ay isdiiwaan geliyaan, kulli markay dhamaadaan aan ka wadaa, sida qolo kasta 5 sano u hayso, qolo kasta 5 sano u hayso. marka qolo kasta Soomaali kamid ah ay Soomaaliya xukunto, haddana magaceeda waa lagu soo wada shubaa mashiinkaas. ama mashiinka ama waxaa sameyn kara xataa qof kale oo caadil ah, ama sheekhayaasha oo kale, sheekhayaasha caadiliinta ah oo kaleeto oo ilaahay ka baqaayo, in qofka xataa asagoo indhaha ka xiran yahay gacanta meesha geliyo oo hal warqad uu soo qabto, halkaas warqad magac ku qoran yahay. marka taas nabadgelyo waxaa aaminsanahay aniga haddii oo la tixgeliyo ama laga rumeeyo ama lasii develop gareeyo oo lasii sharsharaxo, lasii raadiyo sidii looga rumeyn lahaa inay wax macquul tahay oo shaqeynayo. marka taas waxaan nasiib u yeelanaynaa in ma aragtay dagaalkan iyo naceybkan joogtada ah oo meel uu ka socdo iyo meel u socdo la aqoonin inuu istaago. in ma aragtay wadankeena dhalinyarada u badan yihiin, dhalinyarada si qalad loo isticmaalin, maskaxdooda la isticmaalin, ma aragtay shaqo la-aantooda laga faa'iideysanin, xoolo la-aantooda laga faa'iideysanin, baahidooda laga faa'iideysanin, balse aan ka faa'iideysano aqoontooda, xoogooda, waxtarkooda, kartidooda, rabitaankooda, inaan adduunka la tartanno, inaan dadka kaleeto ma aragtay wadankeena rabaan inay ka faa'iideystaan, aan anaga indhaheena dhagaheena furan yihiin, si anaga aan noqono dad ma aragtay dalkooda wax kasoo saari karo. dalkeena dal ma aragtay ma ahan oo waxba ka bixaynin, waa dal wax kasta laga helo. sidaad ogtihiinba wuxuu u baahan yahay un si wada jir ah inaan isku dhageysano, si wada jir ah inaan isku ixtiraano, si wada jir ah inaan u kala dambeeno. sida hadda ruulalka ama sharciyada meeshan kusoo koobay oo kaleeto, ruulad muxuu ahaa in kulli dadka la diiwaan geliyo, kabacdi mashiin ama sheekh caadil ah oo qof gacanta geliyo meesha oo kasoo doorto. qolo kasta inay 5 sano hayso, 5 sano kadib qolo cusub qabsato. marka qolo kasta marka waxay ku faanaysaa ama isku ma aragtay taxwiijinaysaa inay wadanka keento ma aragtay horumar wanaagsan, contribution baa wax badan inay kusoo kordhiso dadkii kale oo hore u qabsaday ee hore u keenin oo kaleeto. marka waxay dadka tartan u galayaan horumarinta
iyo wanaaga iyo wadajirta iyo xasiloonida nabadda saas ayaan aaminsanahay. balse haddii la dhaho maaragtay qof kastoo qofkii meesha fadhiista asaa meesha ku dheganaanayo ama qofka ma ogi inay soomaalida waxay dhahaan dadaa laga tira badan yahay waxaas ma ogi sida loo ogaaday. soomaalida ma maqlin weligeed diiwaan gelin ayay sameeyeen. hadda waddankaana ku noolahay 10 sano oo kasta waa la diiwaan geliyaa dadka hal qof kasta macna baadiyahooda waa la ogaadaa inta dad ee waddanka ku nool. maahan dadka cadaanka kaliya maahan dadka ku nool oo dhan ama sharci haysa ama haysanin dadka ku nool oo dhan waa la xisaabiyaa si loo ogaado tirada dadka waddanka degan. so sidee dadku ku ogaadeen in dad laga badan yahay dad laga yaryahay haddiyaan dadka la xisaabinin. marka waxaa muhiim ah in dadka fursad u wada yeeshaan kursigan ilaa ma aragtay noloshaydan oo nabad aan arkin waddankaa u dhashay aan ku dhashay aan weligay nabad arkin haddana aan uga cabsi qabo in caruurteyda ay nabadna arkin nabadgelin la-aanna ma aragta saas kusii jirto. marka wax weyn ma ahan kursiga laisku dilooyaa laisku xirooyaa laisku xoogooyaa soo ma ahan in qof kasto fursadaas albaabka loo baneeyo inuu qof kasta xaq u leeyahay inuu qof kastana 5 sano xukumi karo ilaa ka bacdi 5 sano laga yaabo marka qolo kasta qabsato meesha ay soo xukunto waxay kusoo kordhin kartana kusoo kordhiso waxay ka dhimi kartana ka inta la arko kabacdi laga yaabo qofkii hore u haystay markaa lasoo dhaafay in mar labaad qofkaas uu soo laabto. marka taas waxay noqon kartaa nasiib oo kale haddii waayo waxaa dooranaya mashiin ama qof oo sheekh caadil ah ama sheekhayaal caadil ah. marka taas nasiib hadday noqoto oo kaleeto way noqon kartaa camal. tusaalahaan qofka u dambeeyay marka hore haddii marka labaad oo kulli lagu wada shuba again uu lasoo qabto oo kale taas bakti nasiib baa la dhihi karaa. laakiinse asuunas isla markaas 5 sano qof qoladaas ugu dhamaato ma kusoo noqon karaan ilaa dadka dhan ay fursad u wada helaan ay kursigaas ku fadhiistaan. marka insha allah hadalkeeda kusii badinin waxa ugu muhiimsan waxaa weeye in ma aragtay waxa ugu muhiimsan inaan nabadgelyada joogtada ah sidaan uga shaqeyn lahayn nabad waarto si aan u helno naxariis si aan u helno neecaaw si aan u helno nolol wanaagsan. marka waa muhiim qof kasta oo Soomaali ah ama dalkii joog ama dibadda joog maxay dhahaan qorax joog iyo maxaa lahaye ma ogi magac kale oo ilo waxay saxaabada ii sheegay halkaan ka tagtay Ingiriiska magacyo ugu caan dadka oo Soomaali wax badan ka maqnaa qurbe joog ama qorax joog noqo in aan ka shaqeyno nabadda iyo nabadgelyada waddankeena because waana la weydiinayaa aakhiro qof kasta oo anaga naga mid ah waa mas-uul. marka insha allah intaas ayaan rabaa caawa inaan idinla wadaago. waa inoo mar dambe xiise haddii eebaha wada idmo fadlan like badan saar haddii aad ka heshay dadka la sii wadaag adiga oo mahadsan. maxaa la dhahaye subscribe-kan ha iga iloobin adoo mahadsan haddana waa inoo mar dambe xiise leh haddii eebaha wada idmo mahadsanid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.